Xoghayyihii guud ee dhaqdhaqaaqii dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqiinay SYL, shakhsi ka mid ahaa hogaamiyeyaashii xorriyadoonka ee laga bartay dunida wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Maskaxdii ka dambeysay in dhaqdhaqaaqii ururkii xornimo-doonka SYL uu gaaro gobol kasta iyo goob kasta oo Soomaalidu ku nooshahay. Qofka aan ka hadlayo waa Cabdulaahi Ciise Maxamuud, ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya. Haddaba maxaynu ka naqaanaa taariikhda hogaamiyahan? Waxaynu ku dahqaadi doonaa muuqaalkeennan inagoo ogaan doona sida hogaamiyahan iyo kuwii la midka ahaa ugu horkaceen bulshada Soomaaliyeed inay helaan xorriyadooda kana hoos baxaan gacantii gumaystaha reer Yurub. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Qaaradaha Afrika iyo Aasiya waxaa bartamihii qarnigii 20aad ka soo baxay hogaamiyeyaal ururo xorriyadoon ah oo dalkooda u horkacayay inay gaaraan madax-bannaani dowladeed. Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo ahaa xoghayyihii guud ee dhaqdhaqaaqii dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqiinay SYL ayaa ka mid ahaa hogaamiyeyaashii xorriyadoonka ee laga bartay dunida wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Wuxuu sanadkii 1922 ku dhashay magaalada Afgooye oo dhanka koonfur galbeed kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa iska dhalay Ciise Maxamuud Bidaar oo ka soo jeeday magaalo xeebeedka Hobyo iyo Mareere Diini Axmed oo ka soo jeeday magaalada Caabudwaaq. Aabihii waxa uu geeriyooday isaga oo carruur ah, waxaana korriinshihiisa dusha saaratay hooyadiis Mareere Diini Axmed. Cabdulaahi Ciise wuxuu ahaa hogaamiye dabiici ah oo farac u leh hogaaminta. Wuxuu ka yimid qoys hormuud dhaqan ka dhex ahaa reerkii uu ka dhashay. Awowgiis Maxamuud Bidaar ayaana ahaa kaaba qabiilka jilibka uu ku abtirsado. Dalmareenkii Talyaaniga ahaa ee Luigi Rubbegi Brigheti oo sanadkii 1888 booqday magaalada Hobyo ayaa buuggiisa xusuus qorka ahaa ee Soomaali iyo Banaadir ku xusay inuu meel u dhow magaaladaasi dhanka bariga kula kulmay nabadoon Maxamuud Bidaar oo ahaa awoowaha Cabdulaahi Ciise Maxamuud. Cabdulaahi Ciise wuxuu ahaa nin waxbarashada ku dadaala, inta badanna isaga ayaa wax isbari jiray. Yaraantiisii ilaa iyo markii uu soo weynaaday, dugsiga Quraanka wuxuu ka dhigtay magaalada Afgooye. Kadibna wuxuu waxbarashada bilowga ah ka bilaabay mid ka mid ah dugsiyadii hoose ee Talyaanigu ku lahaa magaalada Muqdisho, sida uu ku qoray qoraaga Smith Hobson buuggiisa The New Africa. Isaga oo 16 sano jir ah ayuu Cabdulaahi Ciise u wareegay magaalada Marka, halkaas oo uu ka shaqo bilaabay xafiiska boostada intii u dhaxaysay sanadihii 1939 ilaa 1941. Sanadkii 1941 markii ay Ingiriisku qabsadeen koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee Itoobiya, iyagoo horey u sii haystay waqooyiga Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee NFD, waxaa Cabdulaahi Ciise laga joojiyay shaqadii, taas oo ku kaliftay inuu bilaabo howlo ganacsi, isagoo isaga dhex gooshi jiray deegaanada koonfurta Soomaaliya. Dhowr sano kadib isaga oo ganacsada ah ayuu sanadkii 1944 wuxuu magaalada Beledweyne kaga biiray ururkii SYC, halkaas oo ay isku barteen dad magac weyn ku dhex yeelan doona ururka SYL sida madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Cali Jimcaale. Muddo yar gudaheed ayuu Cabdulaahi Ciise ku dallacay oo uu kor ugu kacay, isagoo loo doortay xubin golaha dhexe ee ururka ah. Halkaas ayuu kaga mid noqday hogaamiyeyaashii waaweynaa ee SYL ilaa markii dambe loo doortay xoghayaheedii guud. Sanadkii 1947 markii uu la wareegay xilka xoghayaha guud, wuxuu isla markiiba qayb ka noqday isbeddelkii ka dhex socday habsami u socodka iyo dib u qaabaynta dhaqdhaqaaqa oo iska beddelayay SYC iskuna beddelayay SYL. Isbeddelkaas ayuu ahaa kan keenay in ahdaafka dhaqdhaqaaqu uu gaaro gobol kasta iyo goob kasta oo Soomaalidu ku nooshahay. Wuxuu kaloo Cabdulaahi Ciise ku soo beegmay iyadoo quwadihii afarta ahaa ee Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Ruushka ay kaga shirayeen magaalada Paris sidii laga yeeli lahaa masiirka iyo mustaqbalka dalalkii uu gumaysan jiray Talyaaniga, kuwaas oo kala ahaa Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya. Wuxuu ku jiray 5 xubnood oo ay SYL u soo xusheen inay go'aanka ururka hor dhigaan wafdigii afarta quwadood ee xaqiiqi raadinta ee yimid magaalada Muqdisho horraantii bishii January sanadkii 1948. Kadib markii afarta quwadood ay go'aanka gaarista Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya u wareejiyeen golaha guud ee qaramada midoobay, ayaa Cabdulaahi Ciise wuxuu u duulay magaalada Paris sanadkii 1949 iyadoo ururkii SYL ay si weyn uga sii ambabixiyeen magaalada Muqdisho. Wuxuu u sii gudbay London oo ay ku martigeliyeen jaaliyadii reer Somaliland ay ku nooleed magaalooyinka Cardiff, Liverpool iyo London. Go'aanka SYL wuxuu ahaa in Talyaanigu uusan Soomaaliya dib u maamulin ee afarta quwadood ee kala ahaa Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Ruushka ay muddo 2 sano ah dusha ka maamulaan, balse nasiib darro go'aankaasi wuxuu noqday mid shaqayn kari waayay.
Cabdulaahi Ciise wuxuu ahaa halgamaa muhiim ah oo door weyn ka qaatay dadaaladii diblomaasiyadeed ee xornimada Soomaaliya, isaga oo si geesinimo leh u difaacay midnimada Soomaalida. Inkasta oo uu la kulmay caqabado dhaqaale iyo nolol adag intii uu dibad wareegga u ahaa xorriyadda dalkiisa, haddana wuxuu codka shacabka gaarsiiyey Qaramada Midoobay, isagoo noqday astaan muujinaysa adkaysi, waddaniyad iyo u heellanaanta xorriyadda dalka, heer afkaartiisii iyo mintidnimadiisa ay keento in hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay kaga shakiso inuu xambaarsan yahay fikir shuuci ah. Bishii Noofembar sanadkii 1949, markii golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay uu go'aamiyey in Talyaanigu uu Soomaaliya maamulo muddo 10 sannadood ah, muddadaas cayimanna uu ku gaarsiiyo xorriyad taam ah iyo maamul dowladnimo ay u dhisan yihiin hay'adihii dawliga ahaa, ayaa Cabdulaahi Ciise oo ka murugaysan go'aankaas wuxuu sanad kadib dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho oo uu ka soo maqnaa dhowr sano. Wuxuu u ekaa nin aan ku guulaysan ujeedkiisii ahaa inuusan Talyaanigu dib ugu soo noqon dalka. Markii uu ku soo noqday Muqdisho ayaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhex dhacay hoggaanka Israel wuxuu kallifay in Cabdulaahi Ciise uu xanaaq kaga maqnaado kulamada ururka, ilaa markii dambe lagu guulaystay in dib loo soo carceliyo. Khilaafku wuxuu ka dhashay madaxda Israel oo isku mari waayay sida loola tacaamulayo maamulka cusub ee Talyaaniga ee la magac baxay AFIS. Qaar ka mid ah madaxda Israel ayaa ku doodayay in AFIS aysan ka duwanayn xukunkii hore ee faashiistiga Talyaaniga ee Ingiriisku meesha ka saaray, halka qaar kalena qabeen in maamulka AFIS loo arko oo loola macaamulo si ka duwan sidaas. Labada dhinac ee Israel waxay aakhirkii isla gaareen xal mastuur, waxayna ku heshiiyeen in wada shaqayn dhow lala yeesho maamulka AFIS si aan loo luminin waqtiga loo xadeeyay in dowladnimo lagu gaarsiiyo Soomaaliya. Heshiiska Israel dhexdeeda waxaa ka shaqeeyay dowladda Masar, iyadoo laga amba qaadayo heshiiska Israel iyo AFIS ayaa sanadkii 1954 waxaa la qabanqaabiyey doorashooyinkii u horreeyay ee dowladaha hoose, taasoo ururka Israel uu ku guulaystay. 2 sannadood kadib sanadkii 1956 ayaa haddana waxaa la qabtay doorashooyinkii xisbiyada siyaasadeed, waxaana ku guulaystay isla xisbiga Israel. Governatorihii Talyaaniga Enrico Ancelotti ayaa soo jeediyey in xisbiga guulaystay uu soo xulo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad daaqili ah, waxaana ururka Israel ay si aqlabiyad leh u soo doorteen Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo 29 February sanadkii 1956 noqday ra'iisul wasaarihii u horreeyay ee ay yeelato Soomaaliya, wuxuuna muddo gaaban gudahood ku soo magacaabay xukuumad ka koobnay 5 wasiir. Mar kale ayaa Cabdulaahi Ciise loo doortay ra'iisul wasaare kadib doorashooyinkii xisbiyada ee dhacay sanadkii 1959 ee uu ku guulaystay isla ururka Israel. xorriyaddii Soomaaliya iyo israacii Soomaaliya iyo Somaliland kadib wuxuu Cabdulaahi Ciise noqday wasiirkii arrimaha dibadda sanadkii 1960 ilaa 1964 iyo wasiirkii caafimaadka ee sanadkii 1964 ilaa 1967. Julaay sanadkii 1967 ilaa Abriil 1969 ma qaban wax xil ah oo dhanka xukuumadda ah oo aan ka ahayn xildhibaan, hase yeeshee xukuumaddii u dambeysay ee rayidka ee May 1969 ilaa Oktoobar 1969 ayuu ka noqday wasiirkii ganacsiga ilaa dalka uu ka dhacay inqilaabkii militariga. Wuxuu bilowgii hore ku jiray siyaasiyiintii loo xiray siyaasadda, waxaana xabsiga laga sii daayay 1973. Sanad kadib 1974 ayaa hogaamiyihii militariga Saraakiil Maxamed Siyaad Barre wuxuu Cabdulaahi Ciise u magacaabay safiirkii Soomaaliya ee Sweden, xilkaas oo uu hayay ilaa markii uu iska casilay horaantii 1983. Cabdulaahi Ciise wuxuu u guuray oo markii dambe uu iska degay magaalada Roma, halkaas oo ahayd meeshii uu ka weecan jiray inuu tago xilligii uu la dirirayay gumaysiga Talyaaniga. Intii uu siyaasadda ku dhex jiray iyo markii uu howlgabka noqdayba, wuxuu Cabdulaahi Ciise ahaa nin aad loo jecel yahay oo ku sifoobay asluub, anshax iyo afgaabni. Wuxuu caado u lahaa inuu qabto xil kasta oo looga dhiibo dalkiisa. Qof kasta oo ugu gala xafiiskiisa xilligii uu madaxda ahaa wuxuu ku salaami jiray istaag ixtiraam awgii. Ciladiisuna waxay ahayd inuu jeclaa inuu qof walba qanciyo. Wuxuu ahaa nin markuu hadlayo hadalka soo celceliya oo shigshiga, laakiin qalbi wanaagsan. Cabdulaahi Ciise isaga oo da'diisu ay tahay 65 sano jir ayuu ku geeriyooday magaalada Roma 11 Maaj sanadkii 1988. meydkiisa oo calanka Soomaaliya la soo huwiyay ayaana laga soo dejiyay magaalada Muqdisho, iyadoo sagootinta meydkiisa ay isugu soo baxeen shacab fara badan. waxaa lagu aasay qabuuraha qaranka iyadoo tacsidiisa si wada jir ah ay uga qayb galeen madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan iyo kii saddexaad Maxamed Siyaad Barre. waxaana halkaas ku eg taariikhda ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya
halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud